because I'm socdaal, I'm lion, me, onion libaaxa ka leexo fartada ka cisho haddii kale gaf jaf dhiigaaga ku calaacale kadib wuxuu ku leeyahay sorry noloshayda waa farxad cabsi kama qabo bisadaha kama baqo ilaa waxaan ahay libaax. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dalkiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka hal abuur qaybtiisii madadaalo. barnaamijka hal abuur maanta waxaa marti igu ah fanaanka Soomaaliyeed ee Sharma Arke Xasan oo loo yaqaano Socdaal ku soo dhawo barnaamijka studio Hubaal Media Group. waan ku dhawahay aan ku faraxsanahay soo booqashada studio-ha 100%. waayahay fanaana tahay waad heestaa sidoo kale dadkan waa ka qoslisaa mararka qaar. maxaad u dooratay inaad fanaan noqoto oo heesto? waxaan isku arkay astaanta fanaanimo sadarta u doortay 100%. waayahay heestaada kugu horeysay ee aad fanka ku soo gashay maxay ahayd? heesteeda ugu horeysay fanka aan ku soo galay waxay ahayd maqaayadda ka dhaxqadeena heestaas oo ahayd hees fanni ah aan ugu talagalay bulshada inaan uga qosliyo si aan u soo jiito qalbiyada ana u dow. waayahay intaan heesta galin waxaan rabaa maadaama aad dooratay oo aad islees waa ka soo bixi kartaa ehelkaaga ama qof ku dhow oo fanaan ah ma jira mise adiga hubigaagu noqdo saasa isaga soo gashay bank? annaga firkeena iyo faraceena dhammaan wax fanaana ma lahan. familkeyga firkeyga heebta aniga ka soo jeedo aniga fanaan u ah. waayahay waxaan rabaa heesta maadaama heestaadii kugu horeysay ay tahay oo aad fanka ku soo gashay inaad laba eray nooga siiso. heesta waa fanni waa hees macnaha ugu talagalay in ugu qosliyo waana hees la yaqaano aan ah waxa waaye always amkiin ugu inaan ahay boqorkii TikTok maahan hip hop maqaayadadan ka dhaxqadeena waana halayna waana habeena abadka yarey xoolo boolo waan ku furaa sida furka saliida farta ku gashaa sidii farantiga waan ku cabiida sidii cawanta feerahanka tuma sidii dabaalkii hebelow inaga adi marqaati facay markay maqlaan magacayga way naxaan because I'm socdaal, I'm lion, me, onion libaaxa ka leexo fartada ka cisho haddii kale gaf jaf dhiigaaga ku calaacale kadib wuxuu ku leeyahay sorry noloshayda waa farxad cabsi kama qabo bisadaha kama baqo ilaa waxaan ahay libaax botomoodo car iyo ma hortayda macaskaa uu baxay arag uu baqay oo cabsaday. waayahay heestaas iska faniga aad saa sheegtay madadaala ugu talagashay dadka Soomaaliyeed erayada iyo laxanka aad ma samaystay? erayada abana iska lahay hal abuurka ana iska lahay heesta laxankeedana adaa codsaday in lagu sameeyo. yes laxankeedana waxa iska leeyahay fanaanad kala iyadana waayahay fanaanka adaa qaaday laakiin maadaama ay ka timid abwaanka isaga naftirkiisa cilmo qaba heesta dhan dagaal oo ka dagaal ka jara iyo feeranka tuma dadoo ciil qabo maleena macquul asagoo goorbo dagaal ku jiro oo uu sameeyay heesta marka in macnaha dadka looga qosliyeen oo loogu talagalay marka. waayahay heesahaaga heeso badan qaaday maamul goboleedyada qaar u sameysay qaar shakhsiyaad aad ku amaanayso badana erayadaada maadaama eray iska fani yihiin oo hadda jiilka hadda cusub ee la jaan qaadayso erayada badana ma adaa samaysta mise abwaaniina qabtaa oo ku sameeyaan? wallahi abwaaniin way jiraan ismeeyo heesayga waa labo kuwan waa murti waaye kuwan waa madadaalo kuwa madadaalada aniga samaysto kuwa murtida fanaaniinta waxa la rabaa abwaaniinta iyo fanaaniinta xogaa ay xogron. waayahay murano badan ayaa jira oo aad dhaxda ka gashay Socdaal wiil dhalinyaraha tahay mustaqbal fog aad leedahay maxaa ugu wacan muranadaas social media iyo social media inta badan waa muran because maxaa yeelay social media arkaysid waa gurigaaga oo aad degan tahay haddii aad habeen iyo maalin dhex taagan tahay gurigaaga haddii la soo weeraro oo dagaal lagu soo qaadano waxa ku qasban tahay inaad iska difaacdid
afka ama gacanta isbuuc aad u dambeeyay iyo kii ka horeeyaba dagaal aan iyo khaasatan isoo wajahayn ka socdaal ahaan waxaa u dambeeyey in laleeyahay Sheekh Shantaay u dambeeyey marka dagaal kasta oo social media ka dhaco qofka lagu soo qaado wuxuu ku qasban yahay inuu macnaha difaaciisa oo la yimaado qofkaasna uu iska dhaciyo yalla aamusana leedahay marka aad aamusto waxa waaye feeraha la iska xashiri isla Sheekh Shantaay rabnaa inaan galno si shaqsiyan ku caayay waliba maadaama qof wadaad oo culimad inuu wacyi geliyo uu maxaa lahaa baraha bulshada uu soo galo hadana in shaqsiyaad uu weeraro aad adiga kamid tahay shaqsiyaad kale baraha bulshada ku jirna ay tahay maxay kaaga dhigantaa ka fanaan ahaan wallahi ka socdaal ahaan waxay iga dhigan tahay Sheekh Shantaay inuu aniga soo abaaro ama abuurti ilaahay uu gafo macnaha aniga uu aflagaadeeyo waxay iga dhigan tahay 100% biriskiisa inuu ku raadinayo si qaldan 100% sababtoo sheekh ma dhihi karaba afka boobay macnaha afkan aan ka cili karin maaha sheekh ma sababtoo culimada waa naqaan waaweyn waxay sameeyaan dadkay wacdiyaan waxay sameeyaan way baraarujiyaan haddii qofkan qaldan yahay waxay u sameeyaan macnaha dhiirigelin u sameeyaan si degan wax u sheegan laakiin asagu dadku caynaya uu aflagaadeynaya sheekh masaajid dhex joogo oo caaytama oo aflagaada wado sheekh ma dhikri waxa dhikra waa shaydaan Shantaay sheekh miya qofka shaydaan miya bootadiisa benta run miya wacdiga benta muxuu tara shimbir sheekh ma ku sheegan ana ruudahay waxaan uga jeedaa wax kala maahan inuu yahay shaydaan oo macnaha dadka loo soo diray